السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقبايا قرنك جمهورية الصوماليلاند أيا waxa uu idin soo jeedinaya wararka gobolada. Waxa si rasmi ah loo soo dhameystay mashaariic biyo-gelinayd oo xukuumaddu ay ka waday degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag. Cabdiraxmaan Saliici ayaa warkan noo soo diray. مشروعاً بلادن بيو سوسار كايا كميدها مشروعيدي ugu ballaadhnaa ee xukuumadda uu galwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ay xilligii ololaha doorashooyinka madaxtinimo ay ugu ballan qaaday gabi ahaanba shacabka ku nool degmada Ceelafweyn balse nasiib darro kaasi oo aanay xukuumadihii hore ee soo maray dalka Soomaaliland aanay ku guuleysan waxaana isla waqtigan la soo afjaray dhamaystirka iyo gabagabada hawlgalkaasi ballaadhan ee biyo soosaarka waa in badan shacabka ku nool degmada Ceelafweyn iyo nawaaxigeeda ay baahi weyn u qabeen injineer Aadan Caruuse oo kamid ah hawlwadeenada shirkadda Somaliland Training Company ayaa tibacay qaabka iyo qorshaha hanaan socodka ee biyaha ceelashaasi iyo walibana sida ay shirkad ahaan ugu guuleysteen soo saarista labadaasi ceel ceelkan waa ceel dheer oo 200 mitir qodan wuxuu kamid yahay ceelashii shirkadda Somaliland Training Company oo qoday ceelasha ugu biyaha badan saacadii wuxuu soo saari karaa 60 متر كوبي أي صار كلام معناه يصدق بقولة فاصلة يستاد ونمرنا جوزين هل متر نقص بعين بيها الحمد لله والله هذه لا هي ماشي لا يجوز كذا لو ودي ونسوي هاي مش هو رسم زاد عفاف ونسوي يصدق إلهي مهدي وأنا وضعش السوماليلاند Training Company عبد جامع ديريه oo ah isduwaha wasaaradda biyaha Somaliland ee degmada Ceelafweyn oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay inay farxad weyn u tahay guushan ballaaran ee laga gaafay balse aanay biyaha ceelashani ku koobnay ay ka faa'iideysanayaan dadka xoolaha iyo sidoo kale wax soo saarka beero cusub oo laga sarcay ama laga yagleelay bogcadda ay ku yaaliin labadaasi ceel Sheekh Ciise oo isna ka socday dawladda Kuwait oo mashruuca ceelashani ku deeqday ayaa tilmaamay ceelashani oo kamid ah tiro ahaan 13 ceel oo ay dawladda Kuwait ugu deeqday xukuumadda Somaliland uu nasiib wanaag uu goobjoog ka yahay dhamaystirka laba kamid ah ceelashaasi oo mid kamid ah uu noqday ceelka ugu biyaha badan ceelasha Somaliland waxaana uu intaasi raaciyay ama uu intaasi ku daray inay marka ay xukuumadda Kuwait aragto qaabka dhamaystirka ceelashani ay si weyn ugu bogi doonto taasina ay dhiirigelin buuxda u noqon doonto buu yiri inay ceelal intaasi ka badan ay mar labaad ugu deeqdo xukuumadda Somaliland iyo shacabkeeda qaar kamida dadka deegaankaasi ay ceelashani dhacaan ama ay ku yaaleen oo yana mar ay la hadlayeen warbaahinta qaranka ayaa waxay tilmaameen sida ay ugu faraxsan yihiin mashruucan biyo soosaarka ee ceelasha biyahani ay xukuumadda Somaliland ee galwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ay haatan ku guuleysatay maamul iyo dawlad inkastaba dadka noo qoday alxamdulillaah rabbil caalamiin mahad ilaahay baanu u jeedinaa ilaahay nin walba hadii ninka leeyahay umada ceelka noogu deeqday iyo amarka lahayba amarkana ilaahay bay iska maanta alxamdulillaah bay joogtaa wanaagsan biyo waa ka cabnay waa si wanaagsan u socdaan irkadii iyo hadii riigii iyo mid walba waa shaqeynaya biyuuna waa wanaagsan dhaaxina waa nagu dhowda waxaanu kaba mahad siinaya ama farxad dheeraad siina ku deeqday ceelka oo ah dawladda Kuwait waxa suurtageliyay oo iyadana ay ka suurtagashay dawladda Somaliland iyo shirkadda Somaliland Training Company sidaa darteed waxaanu leenahay mahad baan ilaahay ugu qaaday marka aad waxaan ugu faraxsanahay xoolaha iyaga ka caba beeraha yar yar oo aanu iskaga berberano inteeda magaranaysa jeeraankii waa si weyn buu noo anfacay sidaas waxa ma aanu yani dawladdu ay ugu suurtagelisay inaan ku faraxsanahay waxaan halkaasi kula wareegay furayaasha labadani ceel isduwaha wasaaradda biyaha Somaliland ee degmada Ceelafweyn Cabdi Jaamac Diiriye waxaana waqtigan laga bilaabo ceelashaasi si toos ah u maamuli doonta wasaaradda biyaha Somaliland waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Siciid telefishinka qaranka Somaliland aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Saliici warka xiga intaan ku kulmi doono hadii Allah uu dilino ogolaado assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh